قال محمد أحمد إسلام مدحوينه دور الشدة قبا شرعي بعد ولاده أنا كل أقول قبل كذا أودياشيس وأكون فدي استاد وجبلان وسدح قبل مد والله هيستا كي كلا لبده كلا مد فرماجة هذا أنا قبصدي مد جبلان أي ما بوشه شرعي بيقوله هاي كراسة جبلان إنه يكون قبته أيضا أي شرعي يقوله مناسب بيقوله هاي قفكم معها حد قدبكم معها odayaasheedii baa joog ugaasyadii baa joog boqorreedii baa joog salaadiintii baa joogta kursi uusan ugaaskiisa joogin 16 oo kismaayo uusan joogin malaha kursi uu saxiixiisi uusan gadaas kismaayo joogin malaha hadii caqabad la geliyo garoomadii barooma la dhigay oo caqabad la geliyo oo military la dejiyay waxaan anaga u casanaynaa beesha caalamka iyo ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roobla shalayba waxa iyaga wax caqabad la iskaga dhigo ma hayna awalba shalay bay هل بيقولين ريح حلال ما دش أهايين يعني نقول رجالين كراسان نجنا لجربين دورشة الصومالية. وحن هل كان أنا وحن كإيمت دعنا قبل كجدا يعني كمية هاي قبل كأننا كإيمت أنتنا هذا وحن وإيمت صومالي فدراليسن وي شنت دولة قبلات doorasha ka jirta oo aqalka hoose ee Soomaaliya qolo walbana gobolkii ay lahayd bay dhismo aadi anagana saasan inta u nimid madaxweynaha ay leedahay madaxweynaheedana maamulo dawladda federaalkana raali bay ka tahay beesha caalamkana raali bay ka tahay Soomaaliya isku sumad weeye isku luqad weeye isku diin weeye inta kale oo Soomaaliyeed sida baarlamaanka aqalka hoose ay u dhisteen inaan anagana u dhisano way ayagan ka midnahay 16 kursi gobolka Geda yaali ayageeka doorashadii inta xaaladda marxaladii inta waqti waxna diirsidii aan ku doodo waayno laanahu sabab maamulada dhan Puntland ayay la mid tahay iyada si dadkun qaban lay qaban wali dadkun ka dheerad ama ka dheerad madaxweynayaasha ayaga labadooda degmo iyo sidii xaaladii hayti iyo seedan waxaad moodaa marka dawladda dhexe Soomaaliya ayaa faragelin sameysay gobol maamulka Jubbaland kamid ahay si xooga oo sharci darro ciidamo ku geysay gobolka dadkii u dhashay waa joogan wax laga tashaday iyo waxay mas'uul ka ahaayeen iyo waxay go'aansadeen in gobolkaas uu ka go'ay Jubbaland ma aha mana ahayn dana siyaasadeed oo farmaajo uu ka lahaa inuu meeshaas kuraas ku boobo ayuu ciidamo u geystay dad ku laayay askar ku laayay Jubbaland ku shacab ku laayay caruur ku laayay haween ku laayay waliina waa jirtaa dilkii iyo dhibaatadii waxaana daliil u ah dadkaas inay yihiin dad askara oo meeshaas xoog lagu geeyay makhraati waxa ka oo daliil u ah marka ay hadlayaan inay yihiin dad mas'uuliyiin inaysan ahayn meeshan waxa la isugu yimid shir jaraa'id in lagu qabto shirkaas jaraa'id oo ka socda 16 kursi ee gobolka Geda ku isnanay haddana la maran habaabiyay oo dhibaato badan ay ka jirto qodobka koobaad waxaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya beesha caalamka guddiga doorashada dhammaan aan ka codsanaynaa kuraastaas inayna ka harin kuraasta Soomaaliyeed